cabdilqaadir cali obsiye oo ka mid ah siyaasiyiinta somalilan oo saaka qaar ka mid ah warfidyeennada uga hadlay magaalada hargeysa waxuu ka hadlay golihii wasiirada ee dhowaantan uu soo magacaabay mudane muuse biix cabdi iyo sidoo kale dhulka barakaysan ee qudus ee ay haystaan israa'iiliyiintu iyo qodobo kale waxaana hadalladiisii ka mid ahaa maadaama aynu nahay dal muslina xaaladan bariga dhexe ee ilaa hadda taagan yaan la ilaabin baan soo jeedinaya insha allahu tacaala waayo dad muslina waynu nahay guriga lagu soo doorayna waa gurigii ilaahay waxaan jeedinayaa waxaynu ka tari karnaa waxa weeyaan waa duco iyo allabari waayo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ducaau muqul cibaada ducadu waa dhuuxa cibaadada ama ducaau silaaxul muumin ducadu waa hubka qofka muuminka ah marka waxaan leeyahay ducada yaan laga daalin iyo in laysku baraarujiyo in laga hadlo inaan dhulka la dhigin baan soo jeedinaya culimo cuqaal dhalinyaro iyo bulshada dhammaan somalilanba arrinta labaad aan doonaya inaan ka hadlo waxa weeyaan xukuumaddan cusub ee iminka uu soo dhisay madaxweynaha cusub muuse biixi waxaan horta marka ugu horeysa aan runtii u soo jeedinayaa hambalyo waayo qofka markiiba lama mucaarido waxay u baahan tahay in la ogaado qofku wuxuu qabanayo oo laga dhursugo oo la baxnaaniyo waxaanan kusii bogaadinayaa laba qodob oo ka mid a runtii oo kala mid ahayd talooyinkii aan hore usoo jeedinay oo ahayd in dadka la shaqaalaysiinaya ama wasiiradu ay keenaan diiwaangelinta hantida ay leeyihiin ama ay haystaan shaqada kusoo gelayaan in la qoro horaan usoo jeedinay waana ku mahadsan yihiin arrintaa inay fuliyeen oy qaateen waana ta ugu muhiimsan waxayna dilayna waxa weeyaan wasiir isagoo xayraana suuqa looga yeedhay oo isagoo milyaneera markuu ka tago meeshii ka tegaya waxaan leenahay taas xukuumaddu waa in horena waan usoo jeedinay in badan iminkana waa kusii adkaynaynaa maadaamaad qodobkaa aad qaadateen in la diiwaangeliya hantida qof waliba uu haysto waa in lagu daraa qofkaasi markuu ka tegayo in la xisaabiyo weeyaan waxaa kalean ugu daraya madaxweynaha tala ahaan in uu runtii ballaadhiyo talada waayo talada adaa ku nool baa layidhi iyada kuguma noola waxaa loo baahan yahay cidda uu la tashanaya madaxweynuhu inay noqoto cid aqoon leh caqli leh cilmi leh diin leh inay noqoto oo ka maran qabiil munaafaqad siyaasad waxyaabaha caynkaas ka maran oo iyo nicjeclaysiba ka maran waa inuu ciddaa la tashadaa waayo washuuraa baynahum baa ilaahay yidhi nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa khaaba man istashaara qofka yacni dadka la tashadaa ma hooga hadiyo jeeraa leh go'aanka adigaa leh idaa casabta alamra fatawakal cala allah laakiin talada marka hore ballaadhi waxaana samaysaa guddi ka kooban intaa culimo oo diin leh aqoon-yahano siyaasiyiin iyo waxgarad ka maran qabyaalad iyo nicjeclaysi oo caqli iyo u saaxiiba iyo aqoon kuwaas la tasha baan leeyahay samee guddidaana u magacaabo baan leeyahay waxaa kalean ugu daraya madaxweynaha tala ahaan in uu runtii ballaadhiyo talada waayo talada adaa ku nool baa layidhi iyada kuguma noola waxaa loo baahan yahay cidda uu la tashanaya madaxweynuhu inay noqoto cid aqoon leh caqli leh cilmi leh diin leh inay noqoto oo ka maran qabiil munaafaqad siyaasad waxyaabaha caynkaas ka maran oo iyo nicjeclaysiba ka maran waa inuu ciddaa la tashadaa waayo washuuraa baynahum baa ilaahay yidhi nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa khaaba man istashaara qofka yacni dadka la tashadaa ma hooga hadiyo jeeraa leh go'aanka adigaa leh idaa casabta alamra fatawakal cala allah laakiin talada marka hore ballaadhi waxaana samaysaa guddi ka kooban intaa culimo oo diin leh aqoon-yahano siyaasiyiin iyo waxgarad ka maran qabyaalad iyo nicjeclaysi oo caqli iyo u saaxiiba iyo aqoon kuwaas la tasha baan leeyahay samee guddidaana u magacaabo baan leeyahay insha allahu tacaala waxaan intaa ku darayaa bulshada somalilan yani iminka doorashaynu ka soo baxnay runtii waxayna soo dhex maray xanafo fara badan qabyaalad kala qoqob يعني دخرنا فربنا إن جارسيان سياسيين تقول ولا لين هذه الشهر وحنا وحي ولا قصب بحي شعبنا سومالي وحنا نقول باقيا من نمو يا ولالتين نمو يا إسكاشي يا إلا لا شقية حكومة داسي إلا إيه أنت يدي سوسو تاجس مركو قف سوسو تاجس وخلط كيسو بطو الأركو وحي هاي مركا ولا هور إيمانية لكن أنت كهور يسوي حنا هاي حلا لا شقية حلا جرق وبطو واي سومالي ده نوع تقنا حيسي هذا مالين قف كوي أمانة ما أنت هره ما أنت تمنى وعاين waxaa la tahay laga baxo waxa loo baahan yahay sidii waxa aynu wada qabsan lahayn horena uga socon lahayn halkaan aynu taagan lahayn baa loo baahan yahay madaxweynahana waxaan kula talinayaa inuu isaguna sacabka mariyo oo uu gacanta mariyo oo uu isu keeno dadkii xinafta iyo qabyaaladu ay kala irdhaysay inuu isu keeno oo walaaltinimeeyo kana shaqeeyo horumarkooda iyo sidii cadaalad uu ugu dhaqi lahaa intaasaan kula talinayaa isku soo wada duubo hadalka siyaasi cabdilqaadir cali obsiye ayaa wuxuu ku soo hagaagayaa iyadoo dhawaan ahayd markii lagu dhawaaqay golaha wasiirada ee madaxweyne muuse biix cabdi isla markaana qaybaha kala duwan ee bulshadu ay ka bixiyeen dareeno kala gedisan oo iska soo horjeeda
cabdirasaaq axmed cabdi karanto